بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. داوديال وبرنامجكني مرحبا يا رمضان أنا وهدي جرني أحكامتا بشبر كيسان رمضانك إي صومك axkaamtiisa iyo aadaabtiisa iyo waxyaalaha nolol kaga baahan yahay dadka muslimiinta ee sooman haddaynu nahay. xalaqadiian maantay oo ah xalaqadii 11aad waxaan uga hadli doonaa waqtiga afurka iyo waqtiga suxuurta iyo qofka sooman waxa looga baahan yahay ee muslimka ah inta uu sooman yahay maalinimada aadaab iyo akhlaaqa ayaan insha allahu tacaala intii alla uu nooga idmo aan wax ka sheegi doonaa. iftaarka ama afuritaanku diinteenu waxa ay nafartay oo sunnada nebiga ah sallallahu alayhi wasallam in lagu degdego oo qofku markii uu hubsado qoraxda inay dhacdayba inuu afuro. nebigu sallallahu alayhi wasallam waxa xadiid saxiixayn ku yaal ka sugnaaday inuu yiri sallallahu alayhi wasallam laa yazaalu an-naasu bi khayrin ma cajalu al-fitra. dadku ka suulimay xadiidka waa muttafaqun alayhi, xadiid Bukhari iyo Muslim baa soo saaray. saxaabiga warinayna waxaa la dhahaa Sahl ibn Sacd. dadku khayr ka suulimayaan, yacni khayr bay ku sugan yihiin ummadaydu inta ay dedejiyaan afurka. dedejinta marka waxaa loola jeedaa marka aad aragtid qoraxda inay dhacdayba waa in aad horay ka afurtid. saasoo kale waxaa nebiga ka sugnaaday sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi idaa aqbala leylu min haahuna, waa meesha maaragtay qoraxdu ay u dhacdo, halkaas haweenku badana ka yimaada. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، maalintiina ay xagga ka dhamaato habeenkiina uu xagga ka soo galo maaragtay وغربت الشمس qoraxdiina ay dhacdo faqad afdara الصائم. xadiidkaasna waa muttafaqun calayh. bimacnaa culimmadu waxay dhaheen nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay jawaamicu lkelim buu siiyey. waxa uu xadiidkaa ku sheegay ilaa 3 nooc oo lagu garto qoraxda inay dhacday. waxaa laga yaabaa inaad meel godan ku jirtidoo aadan arki karin qoraxdii inay ay godkeedii gashay, laakiin maxaa calaamadda aad ku garan kartid maxay tahay? mugdi bay noqotay. aqbala alleyl, mugdi bay noqotay, waa khalaas waa habeen wey. sidaasoo kale qoraxdii baad aragtayba oo qursigeedii ama godkeedii gashay, khalaas adigana maaragtay waa inaad afurtid wey, waa inaad horay ka afurtid wey. waxaa culimmadu ay ka hadlaan hadda oo masaa'ilka mucaasirka ka mid ah, adoo airbortka jooga qoraxdii baad fiirsanaysay, dalaq bay godkii tiri maaragtay, oo diyaaradda adoo ku dhex jira oo weli aysan kicin. markaas kadib baa waxaa dhacday waad afurtay, diyaaraddii markay kacday dhanka galbeedka ayay sii aaday oo qorax u dhici, qoraxdii bay ka daba tagtay oo sii socotaa. maxaad samaynaysaa? sida raajixa ah waxa weeye wax lagugu leeyahay male hadday hataa qoraxda ka daba tagtaan iyadoo dheer. maxaa yeelay waxaa adiga waajibkaaga u ahaa meeshii aad joogtay qoraxdii oo dhacday ayaad afurtay, qoraxdii oo dhacday ayaad afurtay, maalintaadiina waa dhammaatay. marka sunno waxaa ah in uu qofku maaragtay markuu hubsado qoraxdii ina dhacdayba hore inuu ka afuro. weliba culimmadu waxay dhaheen qalabatu dhanni takfi. haddii aan maaragtay aan mugdi ay noqotay oo aan aada u fiirfiiriyey, haddii meeshii maalan ay daruuri wax iiga aadan yihiin, laakiin aan dannigayga qaalibka ah markaan dadaalay aan u badiyey inay qoraxdii dhacday. waa sidii qibladii oo kale, haddaad qibladii inta qeym iyo daruuri wax inta kaa galaan jihadii aad garan weydid oo aad diyowdid oo aad dadaashid, oo marka aad dadaashay oo aad isku dayday inaad qibladii ogaatid aad tukatay, salaadaas ma soo celinaysid xataa haddii ay kadib caddaato inaadan jihadii qibladda aadan u tukan. marka qalabatu dhanni takfi, inuu dannigaaga malahaaga siday u badan tahay in qoraxda dhacday haddaa hubsatid. nebiga sunankiisa camaligaa waxaa ka mid ahaa seebuu ku afuri jiray, muxuuse ku bilaabi jiray afurka. nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku bilaabi jiray afurkiisa timir oo nooca rudabka la yidhaahdo cusub ah buu ku bilaabi jiray sala allahu alayhi wasalam. sida xadiidkii saxiixa ahaa ee nebiga laga wariyey axmed iyo abu daa-uud iyo tirmidi ay wariyeen. anas wuxuu leeyahay oo khaadimkii nebiga ah sala allahu alayh wasalam annahu kaana yuftiru
calىa ruطabaatin qabla an yusalliya nabigu ruطabaat buu ku afuri jiray. rudabku waa timirta nooca inta aysan qalalin oo timirta mid aynu u naqaan aysan soo gaarin weeye. fain lam takun ruطabaat hadduusan rudab uusan haysan nebigu facalىa tamraat timirta caadigaa buu ku afuri jiray. fain lam takun xasaa xasawaat min maa haddii uusan timirna helin rudabka baa marka hore u fiicnaa uu ku afuri jiray, leanno isla markiiba dhiiggay raacaysaayo waxa weeye caloosha ugama baahna inay hadmi ama burburiso uma baahna. haddii uusan helin timir timir buu wax ka qaadan jiray. hadduusan timirna helin biyo ayuu kaban jiray. nebiga sunnadiisa saas ba ahayd. adibada ama takhaadiirta caalamkuna waxa ay qireen inay aad iyo aad arrinkaas ay muhiim u tahay oo sunnada nebigu oad ogtihiin wuxuu ahaa ilaahay waxyigiis ku socday. wuxuu ahaa sidii ilahayba uu sheegay walaa yantiqu in huwa ilaa waxyin yuuxa in huwa ilaa waxyin yuuxa. nebigu wax kasta oo hawadiisa kuma hadlo, wax kasta oo ku hadli jiray wax ilaahay u waxyooday ayuu ahaa. wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa fi suurati najmi sida ilahay uu ku yihi subxaana wa tacaala. marka nebiga saas bay sunnadiisu ahayd. xadiid kale abu yacla iyo keyrkiisa ay wariyeen waxa uu leeyahay saxaabigu maa ra'aytu rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka alle maana arag oo sallaa salaata almaqrib xataa yuftir walow calىa shurbati min maa. nebigu maanaan arag buu leeyahay saxaabigu oo khaadimka nebiga ah isagoo salaada maqribka tukaday isagoon afurin. wuu afuri jiray marka hore. sunnada nebigu saas bay ahayd. diinteena islaamka lama rabo tashadud iyo tacanut iyo cibaadadan u degdegay. hadihi hiy alcibaada. qofka waxaa la rabaa isagoo oo dihnigiisu u diyaar yahay salaada u khushuucaya gaajadii iyo oonka jebiyey in uu maaragtay u afuro baa loo baahan yahay. saas oo kale xadiid imaamu axmed iyo cabdirasaaq musanafkiisa iyo abu daa'uud iyo tirmidi iyo keyrkiisa ay wariyeen oo xadiid saxiixa ibnu khusayme iyo keyrkiisa ibnu maaja ay dhammaantood wariyeen baa nebigu wuxuu leeyahay man wajada tamr falyuftir calayhi waman lam yajid tamr falyuftir cala almaa faina almaa tahuur. qofkii timir helaha ku afuro iyadaa fiican. markaa kadib biyaha ha raaciyo. haddaadan laakiin aadan timir helin waxaa fiican inaad biyaha aad maaragtay aad ku afur. amarka halkan falyuftirka xadiidka cinda aljumhuur amru istixbaab bay ka soo qaateen. waxaa maaragtay qaatay oo isku adkeeyey ibnu xasm oo culimmada islaamka ka mid oo madhabka daahiriga ragga odayaasha ka mid ah. isagoo amarkaa wixii waa waajib. qofka hadduuba heli karo timir waxaa waajib ku ah inuu timir ku afuro. haddii uu timir helina waxaa waajib ku ah biyo inuu ku afuro. lakin cinda aljamhuur waajib maaha, waa mustaxab, way fiican tahay. timirtu halkan taal hadduu qofka beriis cuno ama baasto cuno dhib male. laakiin sunnadii nebiga waxaa oo fadli badan inaad timir maaragtay aad ku bilowdid. haddaadan timir weydidna inaad biyo ku bilowdid. nacam maxaa yeelay waddamada islaamka qaar badan oo kamid a waxaa timir inaysan aqoon ama aysan haysan ama waddamadan hadda inkastoo hadda timirtii meel walba ay gaartay. marka qofka hadduu timir haysan biyo ku afuraya. wax fiican oo caloosha aan ku cuslayn baa loo baahanya marka hore inuu maarag. marka taas waa arrinka iftaarka weeye. arrinka labaad oo aan xalaqadan kusoo qaadayna waxa weeye oo sunankii nabigeeni maxamed sal allahu alay wasalam kamid ahaa suxuurta. suxuurtu nebigu wuxuu ku sheegay baraka inay tahay, waana sunnadii nebi maxamed sal allahu alayh wasalam. wuxuuna nebigu yidhi sal allahu alay wasalam tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka. war suxuurta baraka ayaa ku jirta. nacam maxaa yeelay barakada waxa weeye qofkii soomanaa awood maalintaas o dhan ku shaqaysto ilaahay ku caabudo ayuu helayaa. oonkii iyo gaajadii ayuu iska difaacayaa wahaakada. walidalika nebigu wuxuu yihi baraka ayaa ku jira. tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka. nacam saas oo kale nebigu xadiid saxiix wuxuu ku yidhi faslu maa bayna siyaamina wa siyaamu ahli اlkitaab aklu saxuur ama aklu suxuur aw kama qaala sal allahu alay waslm. xadiis muslim baa wariyay ama aklu saxar. annaga iyo qolyaha ahlu kitaabka ahaa oo nusuus badan qur-aanka iyo sunnadaba oo nala amray inaan khilaafno. qolyaha gaalada inaan khilaafno aanu isku shabihin xagga dharka, xagga cuntada, xagga waqtiga, xagga maalmaha ciidda, wax walba inaan ku khilaafnaa nala amray qolyahaas gaalada. khayr male. marka nebigu wuxuu yihi annaga iyo fasliga noo dhexeeya, annaga gaalada waxa noo dhexeeya iyagu suxuurtay maaragtay bay ka tagaan, annaguna waa suxuurana. marka iyadan halkaasna ajar baa ku jira, fiiha baraka ku jirta, mukhaalafat alyahuud wanasaara ayaa ku jira. sida asalkaa qofku inuu cunto ku suxuurto ayaa asal ah. inuu wax cuno walow shay haba ahaatee culamadu dhaheen timirba ha ahaatee inuu wax cuno. hadduu laakiin uu waayo waxuu cuno inuu biyo cabo baa loo baahan yahay suxuurta inuu wax cuno.
أبو سعيد الخدري وحنبي كوريي صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة سحور لما أنت قف وحكو سحور توا بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث قال حليه هاي سحورته أو لو واحد يشد مارت وبركة قفكين هالسحورته هدو حكوا بسحورته وايو بيك كليها شوكه كسيو أو هل بيا جرعة هل لقوا ماركتي ماركتي هل لقوا ماركتي إلهي ملائكتي سبا ماركتي ويدعيان وكسليان دتك ماركتي سحورته سنة waxaa kamid marka nabiga sallallahu alayhi wasallam saynu hadaayta aynu niri afurka waxa sunna in la dedejiyo suxuurta waxa sunnada nabiga ah in la ta'khiriyo oo qofku uu dib u dhigo oo uu maaragtay uusan dedejin ayaa loo baahan yahay maaragtay oo waqtigeeda uu dib u dhigo waxa uu leeyahay Zayd ibn Thabit tasaharna ma'a nabi sallallahu alayhi wasallam thumma qumna ila as-salat wa suxuurna salaadii oo kacane fasalahu Anas kam baynahuma قال قدر 50 آية إلى كنتن آيات أولي وكنتن كآيات waxa ku jira aadaankii iyo sunnadii iyo marka halka waxa laga fahmay in uu qofku suxuuran karo aadaanka qubayl aadam hatta inuu suxuuran karo maaragtay aadaanka marka la bilaab karo rabo hatta in uu suxuuran karo ayaa loo baahan yahay xadiidka Abu Hurayra waxa ida sami'a ahadukum an-nidaa wal inaa'u ala yadihi fala yad'u hatta yaqdi haajatahu minhu xadiiskaas waxa wariye Xaakim وصححه على شرط مسلم qofkii isagoo biyo cabaya la adimay inuu iska joojiyo ayaa loo baahan yahay inuu inta uu marka wada uu dhamaysto kadibna iska joojiyo naam insha Allah ta'ala xalaqada dambe ayaynu sii dhamaystiri doonaa haduu alla idmo xalaqada waqtigeedii aan ugu tala galnay ayaa inta ku eg salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh